الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنيقو لدن صالح maanta waxaan nii soo diyaariyay sida loo qorsheeyo ama loo qoro hadafkaaga. Marka hore waa inaad leedahay buug, note ama warqad oo aad ku qoratid hadafkaaga. Kadib waa inaad qorataa 5 hadafood aad jeceshahay. Wax walba way noqon karaa 5taas hadafood ay ka yaraanin ay ka badnaanin. Tusaale ahaan, xafidaadda Qur'aanka, barashada luqadda, business inaad furatid, miisaanka inaad iska ridid, shaqo inaad heshid. Marka 5 hadafood aad qoranaysaa. Marka Qur'aanka ayaa kusoo qaadanaya, marka systemka raacayo aad raacaysaa. Wax walba ku dabaqaysaa. Qof wuxuu go'aansaday inuu Qur'aan ku xifdiyo 3 sano inuu ku dhameeyo. Marka wuxuu qorsheynayaa sidii ugu fudud ku gaari lahaa xafidaadda Qur'aanka. Marka 5 aayadood ayuu qabsanayaa oo xifdinayaa maalin walbo. 5taas aayadood uu ku wadayaa wuxuu ku waday isbuuc, 2 isbuuc, 3 isbuuc. Markaas waxaad arkaysaa himadiyaa lahayd sometimes inaad dib ugu soo noqotay ama kasoo yaraatay. Markuu himadii soo yaraatane sababta maxaa keenay? Marka nafsada weli ma baran, marka waxay rabtaa inay kuu cirsida ahayd. Marka adiga waxaad sameynaysaa noodkaaga yaraa oo ku qoranta hadafkaaga ayaa ku noqonaysaa. Markaad ku noqotid waa isaxaysaa, su'aalo isweydiinaysaa. Marka meeshaas ayaad ku soo celinaysaa 5taad aayadood aad ka bilaabaysaa. Maalin walbo inaad xifdisid. Waad wadaysaa, Ilaahay tawakkalaysaa inuu ku waafajiyo. Ilaahay ka baryaysaa. Markaas isbuuc ama 2 isbuuc markaa wadid abaalmarin ay siinaysaa. Marka meeshaas dhiirgelin ayaad ka qaadaysaa. Waad wadaysaa ilaa aad ka gaartid hadafkaaga. Markaad dhammaysidne hadafka 2aad aad gudbaysaa, ka 3aad, kan 4aad. Marka waxaad noqonaysaa qof oo isku kalsoono, qof oo ma aragtay oo qararkiisa adag oo maxay ahayd oo Ilaahay tawakkalay. Marka qof oo guul gaaray, qof oo himad leh aad noqonaysaa marka insha Allah waxaan rajeynayaa khayr iyo kulan dambe. Subscribe, share. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.